اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم. اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه. wuxuu baab yahay buu yidhi xidhiidhinta la xidhiidhinayo qofkii aabbihii uu xidhiidhin jiray, yacnii samafalka loo samaynayo ciddii aabbahaa xidhiidhin jiray ama ay saaxiib ahaayeen. can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu can rasuuli illaah. cabdullaahi bni cumar wuxuu ka warinayaa rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi: inna abara albiri samafalista ta ugu wanaagsan ee ugu samafalka badani waa an yasila arajulu qofku inuu xidhiidhiyo ahla wuddi abiih, aabbihii saaxiibadii. baabkan imaamu albukhaari raximahullah uu baabaystay wuxuu ka mid yahay baababkii ugu dambeeyey aynu ku jiray ee ahayd sideebaad waalidkaa ugu samafali karaysaa marka ay dhintaan ka bacdi. marka wuxuu soo sheegay baababkii hore qaabab loogu samafali karayo ay ka mid tahay in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo, in wax loo sadaqadeeyo, in loo duceeyo. halkanna mid kale ayuu ka tilmaamaya oo ah ciddii ay xidhiidhin jireen ee ay isjeclaayeen in iyadana la xidhiidhiyo loo samafalo. xadiiskan ibnu cumar baa warinaya, waa cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab radia allahu tacaala canhu, isaga iyo aabiiba allah ka raali noqdo, horaynu usoo tilmaamnay. xadiiska muslim baa soo saaray fii kitaabi albiri waasila ayuu ku soo saaray. xadiiskan wuxuu tilmaamayaa ina abara albiri samafalka ugu wanaagsani an yasila arajulu waa qofku inuu xidhiidhiyo ahla wuddi abiihi, aabbihii saaxiibadii, ama man kaana daa wuddin kii u saaxiib ahaa jacayl oo waalidkaa uu jeclaa ay saaxiibba ahaayeen in la xidhiidhiyo. fawaa'id baa ku jirta. fawaa'idda waxaa ka mida samafalku inuu kala sarreeyo darajaad leeyahay, waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam min abari lbiri buu ku tilmaamay samafalka ka ugu sarreeya. waxaa laga garanayaa inay markaa kala sarreeyaan. waxaa kaloo ka mida in aabbaha saaxiibadii iyo dadkii uu jeclaa inay adiga qaraabo kuu noqonayaan oo ay kaaga baahan yihiin inaad xidhiidhiso u samafasho. taasina waxay ka mid tahay wanaag aad u samaynayso aabbaha dhimashadiisii ka bacdi, waayo aabbaha xilliga uu nool yahay waxaa laga yaabaa wax badan inaad u samayso adoo isaga ku ixtiraamaya maadaama uu kula joogo, laakiin marka uu dhinto waxaa laga yaabaa dad badan inay ilaawaan. sidaa daraaddeed ayaa qofka sidaa sameeyaa aabbihii oo mootan dadkii ay qaraabada saaxiibbada ahaayeen isjeclaayeen xidhiidhiya, waxay ku tusaysaa inuu waalidkii u samafalayo, waalidkii inuu u samafalayo. cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu, sida muslim saxiixiisa uu ku wariyey, xadiiskan wuu ku camal falay. oo taabici lo odhan jiray cabdullaahi bni dinaar baa wuxuu leeyahay maalin innagoo wada soconna cabdullaahi bni cumar ayaa waxaa ku soo baxay nin reer miyiya. isagoo safar ku jira ayay safarkii waxay iskaga hor yimaadeen nin reer miyiya. kadibna
cabdullaahi bnu cumar radia allahu tacaala canhu ninkii wuu salaamay wuxuuna siiyey dameer uu saaraa cabdullaahi bnu cumar oo gaadiid u ahaa ayuu siiyey wuxuu kaloo siiyey cimaamad aad iyo aada u fiican cimaamadaasoo uu gashanaa cabdullaahi bnu cumar yacnii hugii uu gashanaa iyo gaadiidkiiba uu isugu daray cabdullaahi ibnu dinaar baa wuxuu leeyahay waxaanu ku nidhi ilaahay ha ku hagaajiye nimankan acraabtaee reer miyigaah wax yar baa ku filan oo qanciye maxaad waxaasoo dhan isugu dartay cabdullaahi wuxuu yidhi ina haada kaana wuddan licumar bni اlkhadaab wainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul ina abara اlbiri silaة اlwaladi ahla wuddi abiih wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar ninkani wuxuu ahaa mid ay isjecel yihiin aabbahay cumar ibnu اlkhadaab ayay saaxiibba ahaayeen o isjeclaayeen aniguna waxaan ka maqlay rasuulkii alleh sala اllahu alay wasalam inuu yidhi wanaag iyo samafal waalidka loo sameeyo waxaa ugu wanaagsan inuu waladku xidhiidhiyo aabbihii ciddii ay isjeclaayeen marka xadiiska nebigana uu ka wariyey calayhi الsalaatu wassalaam waanu ku camal falay taasina waxay ku tusaysaa saxaabadu siday ugu degdegi jireen inay ku camal falaan wanaagga ay diintu farayso uma qaala raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay bukhaari baabu laa yusami alrajulu abaahu walaa yajlisu qablahu walaa yamshi amaamahu wuxuu u baab yahay laa yusami الrajulu qofku uguma yeedhayo aabbihii magaciisa laa yusami الrajulu qofku magacaabi maayo abaahu aabbihi yacnii magaciisa ugu yeedhi maayo odhan maayo hebelow ku odhan maayo walaa yajlisu qablahu isaga hortiina fadhiisan maayo walaa yamshi amaamahu hor soconna maayo wuu daba soconaya saddexdaa qodob ayuu u baabaystay can curwata bni الzubayr ibn اlcawaam waxaa laga wariyey aw hayrihi ama curwo kayrkii waxaa laga wariyey ana abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu abuu hurayra absara waa arkay rajulayni laba nin buu arkay oo wada socda faqaala liaxadihimaa midkood buu wuxuu ku yidhi maa haadaa minka kan kula socda maxaad isu tihiin maa haadaa kani muxuu ahaaday minka xaggaaga yacni maxaad isu tihiin weeyi faqaala wuxuu yidhi abii wa aabbahay faqaala abuu hurayra wuxuu yidhi laa tusamih bismihi magiciisa ha ugu yeedhin laa tusamih ha magacaabin bismihi magaciisa ha ku magacaabin oo ha ugu yeedhin walaa tamshi ha socon amaamahu isaga hortiina ha socon walaa tajlis ha fadhiisan qablahu isaga hortii yacnii haddaad meel soo gashaan ha ka hor fadhiisane isagu ha fadhiisto markaa kadib fadhiiso aharkan saxaabiga warinaya waa abu hurayra cabdiraxmaan ibn sakhr addawsi radia allahu tacaala canhu in badan baynu soo aragnay aharkan waxaa soo saaray bukhaari inta aan ogahay adabulmufradkiisa ayuu ku soo saaray aharkani wuxuu tilmaamayaa saddex arrimood oo aadaabta wan wanaagsan ka mida qodobka koowaad waxaa weeye waalidka inaan loogu yeedhin magiciisa oo ay tahay aadaab daro in magaciisa loogu yeedho oo aad tidhaahdo hebelow waa inaad ixtiraamtahay oo ku ixtiraamtaa inaad isu nisbayso inuu aabbaha yahay ama waalidka uu yahay iyo inaan isaga hortii la fadhiisan marka meel la soo galo aan laga hor fadhiisan iyo inaan hortiisa la socon aan laga horayn ee la daba soco saddexdaa aadaabood aadka aad ka wanaagsan ayuu tilmaamaya kullu dhammaantoodna waxay ku tusayaan ixtiraam la ixtiraamayo iyo ilaalin la ilaalinayo maamuuska iyo sharafta uu leeyahay ayaa waxa weeyaan ku tusaya xaaladaha qaarkood oo la hor socon karayo way jiraan oo xaaladaha maalan meel mugdi oo la marayo oo tooshka u hayso oo kale maraad hawl u qabanayso oo kale laakiin marka aad wada socotaan waa inaadan hor socon ee aad ka dambaysaa uma qaala raximah اllahu tacaala baabu hal yukanii abaah wuxuu u baab yahay hal yukanii ma kunyaynaya abaahu aabbihi can ibni cumar radia allahu tacaala canhu cabdullaahi bni cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi
laakina abuu xafsin cumaru qadaa laakiin lagu noqoyo abuu xafsin xafse aabihii cumaru cumar ahaa qadaa arrinkaa wuu xukumay wuxuu leeyahay bukhaari raximah اllahu tacaala kunyada waxa la yidhaahdo waa shay kasta carabta isticmaali jiray oo lagu bilaabo ab ama lagu bilaabo ama ibn lagu bilaabo laga horaysiiyo kunyaa la yidhaahdaa oo carabta waxay samayn jirtay oo kunyada u yaqaanin qofku waxyaabaha loogu yeedhaa waa saddex midkood ama waa magac calam ah maxamed cali xuseen iyo wixii la midka ah ama waxaa loogu yeedhaa naanaystaasoo laba nooca midaan dee bannaanaynta ceebi ay la socoto iyo mid iska la qaba maalan qof baa meel ka shaqeeya bakhaar buu ka shaqeeyaa bakhaarle oo kale naanaysin looga dhigo ama bakhaar leh ama gaadhi leh ama wixii la midkaa naanays baa taa la yidhaahdaa waxaa kaloo jira marka kunyo wax la yidhaahdo oo waa in magacii laga horaysiiyo ibn ama ab laga horaysiiyo ama laga horaysiiyo oo in la yidhaahdo maalan gabadh lagu kuniyeeyo carruurteeda qaar ka mid oo la yidhaahdo ummu muxamed oo kale ama abuu muxamed oo kale ama ibnu fulaan oo kale ama binti fulaan oo kale ama wixii la midka waxyaabahaas ayaa kunyo la yidhaahdaa haddaba markii aynu soo aragnay baabkii kan ka horreeyey oo uu yidhi qofku aabbihii magiciisa ma ugu yeedhi karaa ayuu baabkan ku xijiyo wuxuu yidhi kunyada ma loogu yeedhi karaa kunyadu carabta agtooda qiimay ka leedahay waxay ku tusaysaa ixtiraam qofka kunyadiisa loogu yeedho hebel aabbihiiyow ama ina hebelow oo aan magaciisa laga horraysiin oo kale waxay tustaa carabta agtooda qadarin iyo maamuus bay ayay tustaa marka wuxuu soo arooriyey cabdullaahi bni cumar bn اlkhadaab radia allahu tacaala canhu ahar uu leeyahay oo uu isticmaalay aabbihii cumar isagoo tilmaamaya oo ka warramaya ayuu wuxuu yidhi qisay ahaydeen laakina abuu xafsin aabbihii cumaru cumar ahaa qadaa waa xukmiyey wuxuu ka sheekaynayey arrin cumar ibnu اlkhadaab uu sheegay ama uu xukumay ayuu soo aroorinayey marka ficilka ibnu cumar wuxuu u soo arooriyey lidalaalati calaa jawaasi takniyati اlab aabbaha in la kunyayn karayo oo kunyadiisa lagu sheegi karayo inay bannaan tahay si ay kuu tusto ثuma qaala raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi bukhaari baabu wujuubi صilaةi الraxim wuxuu u baab yahay waajibnimada in la xidhiidhiyo raximka iyo qaraabada in la xidhiidhiyo qaraabadaasi ama nasab bay ku yimaadaan ama xididnimay ku yimaadaan xidhiidhinta la xidhiidhinayaana waa in loo samafalo oo wanaag loo sameeyo oo la soo booqdo oo wax la taro iyo wixii la midkaa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abu hurayre waxaa laga wariyey qaala inuu abu hurayra yidhi lamaa goortii nasalat ay soo degtay haadihi alaaya aayaddani goortay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin waandir dig cashiirataka tolkaa u dig alaqrabiina kuu dhow ee sokeeyaha kuu ah u dig qaama الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waa istaagayoo fanaadaa waa dhawaaqay isagoo le yaa bani kacb ibni lu'ay reer kacab ibnu lu'ayow anqiduu badbaadiya anfusakum nafihiinna ka badbaadiya min annaari naar ka badbaadiya yaa banii cabdimanaaf ubadkiisiiyow anqiduu badbaadiya anfusakum nafihiinna min annaari naar ka badbaadiya yaa banii haashim ubadkiisiiyow anqiduu badbaadiya anfusakum nafihiinna ka badbaadiya min annaari naar ka badbaadiya yaa banii cabdilmuطalib ubadkiisiiyow anqiduu badbaadiya
أنفسكم نفهن من النار نار كبدبادية يا فاطمة بنت محمد فاطمة إن محمدي أنقذي بدبادي نفسك نفتاد من الله من النار النار تكبدبادي فإني أنيب لا أملك هنن ماي لك أديك كو هنن ماي من الله اللي حقي سكاغا هنن ماي شيء كاغا هنن ماي وحبا كاغا تاريكاني ماي حق الله غير أن لكم هيا شيء وحا إذن سقناتي رحما قرابة إذن سقناتي سأبلها ببلالها أن حريرين دونو أما أن قوين دونو حرير أن كو قوين دونو وأن إذن حريرين دونو باب كانوا حوسوا علوريي البخاري رحمه الله تعالى إنه واجب تهي قرابة إن حريريو waxa lagu xiriirinayaana waa sabafal in loo sameeyo oo waxa weeye xaqi ay lahaayeen la siiyo la soo booqdo xaqa loogu yeedho koodaga xaqa gaba marsan loo digo loo nasteexeeyo sabab loogu noqdo inuu soo hanuuno iyo wixii la midka xadiiskan abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu in badan aynu sheegnay abu hurayra iyo waa abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu ayaa warinaya حديث صحيحين كجرا لفظي كانوا كلا كله أما كواسعسا أبو هريرة وحلي حديث كان قرتي أي سودكتي آيات عن النبي قال له أمري إنه قرابتي سي عشيرة ودي وعشيرة وقبيلك أما وقيب كم إذا قبيلك الأقربين وقوة سيه سيئة وحويد درجات بيليهن أما غيرك أما قرابته أما قبيلكو ويكلا سريان عربتنا مد والب مغابه وتقانا سيده كلا سريان markii aayadaasi soo degtay nabiga lagu amrayo inuu u digo Quraysh iyo tolkii iyo waliba sida kuwa gaarka u sii xiga ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam dhawaaqay waliba sida riwaayada saxiixan ku soo aroortay buurta weyn ee Safa ayuu koray nabigu kaleey salaatu wasalaam markii uu koray buu dhawaaqay si guud iyo si gaar ahaaneed buu hadlay xagga sare ka soo bilaabay marba hoos buu soo degayay ilaa uu soo gaaray inantii uu dhalay Faatima wuxuu markaa ku lahaa nabigu kaleey salaatu wasalaam naftii naar ka badbaadiya oo ilaahay adeeca oo gaalnimadan iskaga soo baxa oo xaqa rumeeya oo irumeeya sidaas nabiga ku lahaa kaleey salaatu wasalaam wuxuu kaloo tilmaamay inaanu xagga alle waxba uga tari karin Allah wuxuu uga tari karay ma jiro oo qaraabanimada wax la isugu taraa inta adduunyada la wada joogo aakhira hadii la tago waxa weeyaan reerka aad ka dhalatay waxba ku tari maayaan bale cid kuugu dhow walaalada iyo xaaskaaga iyo hooyada iyo dadkiina ayaa ka cararayo qofka kale uu ka cararaya si aanu xaq ugu qabsan ama waxa weeye xaq uu ku lahaa aanu ugu qabsan ama dibka taaga daraadi ayaa qof waliba qofka kale ka mashquulay naam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la رسول الله
marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay aayadda ku soo rogay wuxuu imtihaalay oo u degdegay inuu u digo qaraabadiisii iyo tolkiisii xagga sare ayaanu ka soo bilaabay oo wuxuu yidhi yaa bani kacb ibnu lu'ay anqiduu anfusakum min annaar reer kacb ibnu lu'ayow nafihiinna naar ka ilaaliya yaa bani cabdimanaaf reer cabdimanaafow anqiduu anfusakum min annaar waar nafihiinna naar ka badbaadiya yaa bani haashim anqiduu anfusakum min annaar reer bani haashimow nafihiinna ka dheereeya naar ka ilaaliya yaa bani cabdilmuطalib cabdilmuطalib awlaaddiisiiyo anqiduu anfusakum min annaar nafihiinna naar ka badbaadiya yaa faatimatu binta muxamed faatima ila muxamedey anqidii nafsaki min annaar naftaada naar ka ilaali fainii anigu laa amliku laki kuuma hananayo adiga min allaahi alle xaggii shay-an shayna waxba kaaga tari maayo hayra anna lakum waxay idiin sugnaaday ha yeeshee raximan qaraaba idiin sugnaatay inaga dhaxayso saabulluhaa aan qoyn doono bibilaalihaa ama bibalaalihaa labadaba waa la akhriyey balliguna waa rushaynta bimacnaa waan xidhiidhin doonaa waxa inaga dhexeeya qaraaba inaga dhexaysa aan xidhiidhin doono xadiiskani markaa fawaa'idda uu leeyahay waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u degdegi jiray imtihaalka iyo qaadashada iyo fartoonka arrinka nebigu qur-aanku uu amro waxaa kaloo ku jira in marka qaraabadaas la sheego inay dumarkuna soo gelayaan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii faadima ayuu ku daray oo u dhawaaqay waxaa ka mida bannaansho ay bannaan yihiin inuu qofku u nasab sheegto aabbayaashii iyo awooyaashii ama muslimiin ha noqdaan ama gaalo ha noqdaane waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam odayaashan uu tirinayey dee gaalnimay ku dhinteen oo nebigabama soo gaadhin kacb ibnu lu'ay hadday noqoto cabdimanaaf hadday noqoto haashim hadday noqoto cabdilmuطalib hadday noqoto dhammaantood marka qofku inaanay dhib noqonaynin oo waxa weeyaan dadkii uu ka soo jeeday haddii ay gaala yihiin in ay bannaan tahay qofku inuu nasab sheegto waxaa kaloo xadiiska u daliila qaraabanimadu inay tahay ay kala sarrayso oo waxa weeyaan xagga odayaasha iyo awowga lagu kulmayo inay kala sarrayso oo dhammaantood laakiin qaraabo la odhanayo kacb ibnu lu'ay buu ka soo daadegay nebigu markaa dee kacb ibnu lu'ay dad kaluu dhalay wuxuu hoos ugu soo daadegay kuwii isagu ay isku reerka ahaayeen oo reer cabdimanaaf buu dib hoos ugu soo degay cabdimanaaf carruur badan buu dhalay hoos buu uga sii degayoo haashim buu waxa weeyaan u degay haashim ubad badan buu dhalay cabdilmuطalib oo isagu nasabkiisa uu galo ayuu u sii degay ilaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii uu ka soo gaadhayay marka dhammaantood iyadoo qaraabo ah inay haddana kala sokeeyaan waxaa kaloo ka mida xadiiska fawaa'iddiisa in la ysugu yeedho wanaagga iyo camalka saalixa ah iyo inaan la cuskan qofku nasabkiisa keliya aanu cuskan oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam reerka uu ka dhashay waa afdalu اlqabaa'il xagga qabaa'isha marka la sheegayo hadday qoraysh noqoto iyo hadday bani haashim noqoto waxa weeye waa qabaa'isha ugu waxa weeya sharafta badan haddana nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa waxba idinka tari maayo yacnii reer bani haashim baan ka dhashay waxba ilaahay agtiisa kaaga tari maayo bal ee faatima nebigu ku leeyahay ina nebi moxamed baanahay waxba kuu tari mayso haddaadan camal saalix oo ilaahay ku dhoweeye aadan samaynin walihaada baa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man baطa'a bihi camaluhu lam yusrichu nasabuhu qofka camalkiisu dib u dhigaa qolada iyo nasabka uu ka soo jeedaa waxba u tari mayso kor u qaadi mayso marka taana waa laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa qaraabada xidhiidhintooda inay waajib tahay inayna ugu mudan tahay in xaqa loogu yeedho oo diinta iyo wanaagga loogu yeedho xidhiidhinta la xidhiidhinaya inay ka mid tahay uma qaala raximah اllahu tacaala baabu silati الraxim wuxuu u baab yahay qaraabada xidhiidhinteedu baab uu yahay
عن أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري أنصارنا اللون نسبيه وحل قولي إنه يري أن أعرابيا مدريرمية يا عرض وحويا أيمد أما أصوب بحي للنبي عليه الصلاة والسلام نبي أيوب كصوب بحي في مسيره إساقو سفر كتر النبي عليه الصلاة والسلام فقال وحوي أخبرني إي ورن ما مدي ورن يقربني إدويني من الجنة جنة حق إدويني ويباعدني إفغيني من النار تيغفغيني بل أركا إيغورن قال وحوي للنبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ألا تعبديسا ولا تشرك شريك يلي ميسد به ألا شيئا عدنا وحلو ذات ميسد وتقيم الصلاة صلاة نواد أوليسا وتؤتي الزكاة زكاة نواد بحنيسا نواد لئمانيسا وتصل الرحمة قرابة نواد حريريسا حديث كان أبي أيوب الأنصاري باولينيا ميعيسنا وخالد بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه خالد بن زيد بالإلهداء لكن وحو عام كن نقضي أبو أيوب كن يداسو عام كن نقضي قبائشي دقاني غير مدينة كمدها قارهان كوا خزرج ليادو أيو كذا شيء أنصار تنو كمدها وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما قيبوضوا مهمة يقيب سنايين المهاجرون وكوي النبي عليه الصلاة والسلام كنسوا الجرودي مكة مركي لغسو إريين كفارتي قرشيدي كسو إريين مدينة سودة كوا وحليادا مهاجرون كوي سودة ونصريين وحليادا أنصار مركي سوى أنصارتو كمدها شرفت أوليه هاي أبو أيوب الأنصاري الصحابي كالآن لو ذاقين وحكمدها النبي عليه الصلاة والسلام قرقي صدقي إلا قرقي سلقى السيد النبي عليه الصلاة والسلام يمساجد كان إنه مرتئها أبو أيوب الأنصاري والنبي عليه الصلاة والسلام مركي مدينة سوق علي هشيسي ماشي أي فريستي كدب نقطين مساجد كالنبي عليه الصلاة والسلام مركي وفريستي بصحابتي أسوك الديريين كي مرتسوري لها النبي عليه الصلاة والسلام أبو أيوب بايري رضي الله تعالى عنه قرقي قايدي كله سيدا درادت رسولك عليه الصلاة والسلام قرقي قدقيا سيدا سال النبي عليه الصلاة والسلام قرقي سكدقي إلا مساجد كي قرقي النبي عليه الصلاة والسلام لغي يقليلي وورقي النبي عليه الصلاة والسلام مركب الصحابي فضل بدن رضي الله تعالى عنه وارضاه وحليه أبو أيوب من ثيرمية أعرابه وقفك ميغا كنا ولا ميغا الدقن شيس ميغا تعي أي أعرابي أفعربي للقول هذا بدونا ولا هذا من أعرابي مركا أي أصابا بحي الله كل ما يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام في مسيره سوى سفر كترا يكسر بحي كتب نوحي أخبرني ما يقربني من الجنة بل نكار الميغا بل همي يفكر كيس يقيمها يقابك وفكر يا وحكى لم يويدي رسولك يا الله حوله با إيغا مردية أما حولها يقول دعاء أما الدنيا يقول دعاء أما وحنون سنة يا حنون يقول دعاء مدنا ما أرن وحلو واحد يقورت أخبرني ما مدي يقورا يقربني يدويني من الجنة ويا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكر كود يا همي قود وحوها سيدي بيت شنكو قران نارنا وقبت بعدان أخبرني يقورا ما مدي يقورا يقربني يدويني من الجنة جنة يدويني ويباعدني يقنا ديريني من النار نارتنا يقنا ديريني نبي قول عليه الصلاة والسلام حوشة لآفر قضب قضبك كواضح تعبد الله ولا تشرك به شيئا إلهي عابد وعبادة السنة أبدا احتضى عدك له اللوذات والشركة على إيمان حداد جنة دونيسو وهي عبادة إن إلهي لو بدا احتراغا وأمرك وقوين إلهين أمري شركين لي ما دانا ونهيك يوحى وقوين إلينا قرهي مركا الله سمي عبادنا لك علي وعبادة إلهي وعبادة السوء عابد شركنا هؤلاء إيمانه وحبها اللوذات وحيوا لها عبادتي وقاركوا لها
magacyadii wanwanaagsanaaye u gaarka u lahaa sifooyinkii sarsareeye u gaarka u lahaa uu ku sifaysnaa rabbinimadiisii iyo mulkigiisa iyo khalqigiisii iyo maamulkiisa waxaasoo dhan cidna ha la wadaajin wa tuqiimu salaata salaadana waad oogeysaa salaadana waad oogeysaayo salaada faralka ee 5 salaadooda ee joogtada ee maalin kasta iyo habeenkeeda laynaga doonayo 5 salaadoodna iyana waad toosinaysaa oo waad oogeysaa oo shuruudaheeda iyo arkaanteeda iyo waajibaadkeeda waxaasoo dhan baad ilaalinaysaa waa qodob labaad wa tu'ti zakaa zakadana waad bixinaysaa haddii ilaahay xoolo ku siiyo xoolahaagana zakada waad ka bixinaysaa waa qodobkii saddexaad qodobka afraad watasilu raxima qaraabadana waad xidhiidhinaysaa xadiiskan bukhaari iyo muslim baa soo saaray waa muttafaqun calayh fawaa'id badan baanu leeyahay wuxuu daliil u yahay culuwu lhima cinda asaxaaba saxaabada iyo hamigoodu siduu u sarreeyey waxaa kaloo ku sugan su-aasha in uu qofku wixii uu ka jaahil yahay ama wixii uu isleeyahay waa lagaa yaqaanaa inuu jaaniska ka faa'iidaysto markuu culummo la kulmo ama tulaabi cilmi uu la kulmo inuu jaaniska aanu dayicine uu ka faa'iidaysto wixii anfacaya aakhiradiisa iyo adduunkiisana inuu weydiiyo waxaa kaloo ka mida ahmiyadda ay leedahay cibaadada alleh iyo in janno lagu mutaysto waxaa kaloo ka mida salaada iyo zakada iyo qiimaha ay leedahay waxaa ka mida kan uu keenay qodobkan uu soo arooriyey baabkan uu u baabaystay oo ah waxa weeye faa'iidada ay leedahay qaraabada in la xidhiidhiyo qaraabada in la xidhiidhiyo oo waxa weeyaan wixii ay lahaayeen la siiyo ee ah in la soo booqdo in loo duceeyo in xaqa loo sheego in haddii wax xoolo dheer tahay xoolahaaga wax laga siiyo waxyaabahaasoo dhan baa ka mida marka qaraabada oo la xidhiidhiyo waxay ku qiimaysan tahay jannay ku qiimaysan tahay janno ayay ku qiimaysan tahay qaraabaduna darajay kale leedahay xagga dhowaanshaha oo qaraabada xaqa ku toosan iyo qaraabada xaqa ka fogi de waxa weeyaan xagga samafalka way kala sokeeyaan samafalba ha lahaadaane kii gaalka ahaa iyo kii muslimkaa ha ka dhaxeeya in mid walba aad xidhiidhiso laakiin waad kala sokeeyaan mararka qaarkood waxay culammadu sheegaan in haddii qofku uu yahay qaraabada ay qof aada u xun oo aad ka baqayso in xumaantiisaas ama ay wax kaaga soo baydhaan ama aad la xumaato ama aad ku ta'aurto in waxa weeyaan la gooyaa inay bannaan tahay adoo sharkiisa ka cararaya ama dhibkiisaasi inuu ku soo gaadho walihaada baa shiikhii ibn abi jamra uu yidhi faإida kaanuu kufaaran aw fujaaran famuqaaطacatuhum fi اllahi hiya silatuhum bisharطi badli اljuhdi fii wacdihim ثuma إclaamihim إida asaruu ana dalika bisababi takhallufihim can اlxaq walaa yasquط maca dalika silatهum bاdducaaءi lahum bidahri اlغaybi an yacuuduu ilى الطariiqi اlmuhlى wuxuu leeyahay sheikhaasi hadal aad iyo aad u qiimo badan wuxuu leeyahay qaraabadaadu hadday gaalan yihiin ama qaar fujaar oo xaqa garab marsan oo xumaanta la jahraya ay yihiin in la gooyo ilaahay dartii loo gooyo ayay noqonaysaa xidhiirhkoodu laakiin waxaa shardi ah inaad juhdi fara badan ku bixiso inaad wacdido oo weliba aad u sheegto haddaad xumaantaa ka tegi weydaan inaad goyn doonto oo aad ka tegi doonto xumaanta ay ku jiraan daraaddood maca daalika ma dhacaysa buu yidhi in loo duceeyo in ilaahay istikfaar loo weydiiyo in ilaahay waddada toosan uu ku soo taago marka qaraabadu saasay u kala sokeeyaan xagga taacada iyo dhowaanshaha ay ilaahay u dhow yihiin marka la eegayo uma qaala raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi bukhaari allah u naxariistay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abi hurayre waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh wasalam rasuulkii alle qaala wuxuu yidhi khalaqa allahu caza wajal alla waa abuuray alkhalqa khalqiguu abuuray falamaa faraqa goortii uu ka faaruqay minhu khalqiga abuurkiisa uu ka faaruqay qaamat araximu qaraabadii baa istaagtay faqaala wuxuu alla yidhi maxaa ku helay qaalat waxay tihi haadaa maqaamu lcaa'idi kani waa booskii kii bika adiga ku magangelayey min alqatiicati in la gooyo kaa magangelayey qaala alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi alaa tardayna miyaanu ku raalli gelinaynin an asila inaan xidhiidhiyo
man wasalaki kii ku xidhiiriya wa aqطaca iyo inaan gooyo man qaطacaki kii ku gooya qaalat waxay tidhi bala haa yaa rabbi rabbigayow qaala wuxuu yidhi alle subxaanaه wa tacaala fadalika arrinkaas baa laki adiga kuu sugnaaday uma qaala abu hurayra radia allahu tacaala canhu abu hurayra wuxuu yidhi dad yahow iqra'u akhriya in shi'tum haddaad doontaan fahal casaytum ma mudantihiin ama waxaad mudantihiin in tawallaytum haddaad jeesataan oo xaqa aad ka jeesataan iyo jihaadka an tufsiduu inaad fasahaadisaan fi lard dhulka aad fasahaadisaan wa tuqaطicuu arxaamakum arxaamtiinana aad goysaan oo gogoysaan oo aad xidhiiri weydaan xadiiskan uu soo arooriyey bukhaari abu hurayra warinaya waa cabdiraxmaan ibn sakhr in badan baynu sheegnay bukhaari iyo muslim baana warinaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa goortii alle ka faaruqay khalqiga iyo abuurkiisa ayaa waxa istaagay raximkii iyo qaraabadii siduu isu taagay iyo siduu ahaa iyo wuxuu ahaa laynooma dirin waayo waa meel aynaan joogin garaadkeennu inaanu gaari karin raximkii ayaa istaagay oo ilaahay la hadlay yacni qaraabanimadii iyo wax isu ahaanshihii ayaa istaagay kadibna markii uu istaagay ayaa alle subxaanaه wa tacaala la hadlo o yidhi maxaa ku helay mah ay maada maxaa ku helay kadib waxay tidhi halkani waa booskii kii ku magan gelayay allow ee kaa magan gelayay goyn la goynayo yacnii waxay ilaahay ka magan gelaysaa in la gooyo oo ay bini aadamku hadhow gooyaano qaraabada iyo raximkaa ay qadarin waayaan alle subxaanaه wa tacaala marka wuxuu yidhi raximay miyaadan ku raalli noqonaynin kii ku xidhiidhiya inaan xidhiidhiyo qaraabada kii xidhiidhiya inaan aniguna xidhiidhiyo oo arrinkiisaan u ilaaliyo oo aan abaalmariyo arrinkii ku gooyana inaan gooyo oo aan arrinkiisa googooyo oo arrinkiisa aan isugu xidhiidhin waayo oo aan waxa weeye aakhirana wixii uu sameeyey aan ku ciqaabo arrinkaasi miyaanu ku raalli gelinayn qaalat balaa yaa rabbi bay tidhi haa alla wuu raalli gelinaya qaala alla wuxuu yidhi fadalika laki arrinkaasaad leedahay haddaba qaraabo kii xidhiidhiya ilaahay baa xidhiidhinaya kii gooyana ilaahay baa goynaya abu hurayra marka isagoo aayad deliishanaya wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan akhriya aayaddan fahal casaytum ay lacallakum waxaad mudan tihiin in tawallaytum haddaad jeesataan sidaa waa la yidhi in tawallaytum haddaad amar qabataan oo madax noqotaanna waa la yidhi an tufsiduu inaad fasahaadisaan fi lard dhulkan gudihiisa aad fasahaadisaan wa tuqaطicuu arxaamakum arxaamtiinna iyo qaraabadiinnana inaad goysaan marka waxaa laga jeesanayo culimmada qaarkood jihaadka ay ku sheegeen qaarna taacada alle ay ku sheegeen marka haddii aad qaraabo goysaan oo aad jeesataan aad xaqa ka jeesataan inaad waxa weeye sidii aad ahaan jirteen laydinku celiyo waa goodi in laydinku celiyo oo xaqan iyo wanaaggan aad ku taagantihi inta laydinka kaxeeyo aad ku noqotaan sidaad ahaan jirteen ee jaahiliyada ee dhiiggiinana aad daadin jirteen qaraabadana aydaan xidhiidhin jirin marka waxa weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qiimaha ay leedahay qaraabada in la xidhiidhiyo iyo waxa laga dheefaya haddii la xidhiidhiyo iyo dhibka lagala kulmayo haddii qaraabada la gooyo ayuu waxa weeye xadiiskani tilmaamaya waxaa la mida ama halkaasaynu iskaga joojinayna wallahu taعaalى aclam wslى اllah وslm وbaaraka عalى cabdihi وrasuulihi mxamed وعalى آlihi وصaxbihi أجمعين